diini iyo dadkii soo qaban qaabiyay dhalinyar ahaan marka hore waa idin mahad celinaya dhammaan marti sharafta kale Soomaali iyo martiba waan idinkaga mahad celinayaa in maantay laygu maamuusay inaan halkan imaado waa sanadkii saddexaad oo aan idin imaado labadii sano sanadkan ku jira halkan aan idinkugu imid sanadkii ka horreeyana meel kale sanad walbana dhalinyaradii way ka sii badan tahay intii way ka sii cod dheer tahay way ka sii farxad badan tahay waxay tusaale ka tahay rajada dalka uu leeyahay iyo horumarka aan tiigsanayno waa mahadsantihiin maanta waxaa farxad weyn ah ma aha inaan idin xiro halkan laakiin inaanan bistoolad bam ama baasuuka ka hadlayn laakiin inaan ka hadlayno sidii aan buugag u qori lahayn ama u akhrisan lahayn sababtoo ah waa sida keliya oo aan dhibka uga bixi karno qoraalka iyo akhriskuba waa dhaqanka lagu yaqaano ilbaxnimaduna waxay ka fog tahay xasaradaha iyo colaadaha haddii akhriska iyo qoraalku marka ay lafdhabar u yihiin taariikh wanaagsan iyo ilbaxnimo sidoo kale ay noqonayso meeshii nagu hoggaami lahayd inaan ka fogaanno xasaradaha iyo colaadaha waxaan aaminsanahay inaad ku taagan tihiin dariiq saxa maanta sida aan nahay dalkeennu meesha uu taagan yahay waa laga sheekayn doonaa mustaqbalka waxa halkan aad u fadhidaan intiina isugu timid ama buuq qortay ama soo qaban qaabisay ama halkan ka hadashay waxay ka mid noqonaysaa taariikhda dalkeennu uu leeyahay 10 sano 20 sano 30 sano kadib waxaa jiri doona dhacdooyin la mid ah kuwan ka waaweyn ka horumarsan waxaa mar walba dib loo jaleecan doonaa oo laga hadli doonaa meeshii laga soo bilaabay buddhigayaasha dhaqankaas ilbaxnimada oo ku ridaya ummadda Soomaaliyeed jidka saxda ah inaad tihiin dhalinyaroy anigoo ku hadlaya magaca dawladda waa ku mahadsantihiin bandhigga noocan ah waxaa laga yaabaa inuu qofka ku soo dhaco inuu dalka ka caawinayo dhinac dhaqaale ama dhinac horumar ama isdhexgal ama aqoon kororsi laakiin waa lafdhabarka horumarka dalka sababtoo ah sida keliya oo aan dunida kula tartami karno qarniga 21aad waa waxa ku qoran buugagta waa waxa ku qoran buugagta idinku aad qortaan dalkan dhaqankiisa taariikhdiisa fursadiisa mustaqbalkiisa iyo hamiga aan ka leenahay dawladnimada qofaan dalkan u dhalan ma sheegi karo qofaan marka uu wax ka qoraayo u damqanayn dalkiisana ma sheegi karto qofaan dalka mustaqbalka lahaynna ma sheegi karto in marka qoraayaasha dalka maanta ay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed taasina waxaan leeyahay waa rajo weyn waxaan rabaa dhowr arrimood halkan inaan ka sheego caqabadaha naga haysta in dalka dib loo dhiso midda ugu weyn ma aha amniga ama dib u heshiisiinta ama kobaca dhaqaalaha ama siyaasad midaysan ama adeeg bulsho caqabada ugu weyn oo naga haysata dib u dhiska dalka
waxay tahay sida loo bedeli lahaa dalka fikirka laga qabo sababtoo ah u dhawaad 60 sano oo dalkeenu uu xor ahaa nus kamida dalkeenu waxa uu ahaa dawlad la'aan u dhawaad 30 sano macnaheedu waxay tahay taariikhdeena barkeed ayaa waxa loo asteyn karaa inaan ama dawlad la'aan ahayn ama dawlad aan shaqaynayn aan nahay taariikhdaas iyada ahi waxay dib ku tahay taariikhda mustaqbalka in markaan la ka aaminsan yahay 30 sano inaan sidaas ahayn waxay dib ku tahay dib u dhiska dalka laba shay ayaa looga bixi karaa mid waa midda idinku maanta halkan aad u fadhidaan oo adduunyada inaad u sheegtaan cidda hadda aan nahay iyo cidda aan noqon doono iyo cidda aan ahaan jirnay idinku inaad qortaan taariikhda cusub oo dalkan laga rabo macnaheedu waxay tahay maanta halkan waxaad isugu dhigteen ama aad isugu timaadeen inaad dhagax dhigtaan sida uu noqonayo dhismaha mustaqbalka Soomaaliyeed tan labaad waxay tahay inteena mas'uuliyiinta hadda ah oo idinkeedin matala oo idinka shaqaalaha idin ah iyaguna inay u dhaqmaan in dhaqanka maanta ay tusiyaan dunida uu ka turjumi doono mustaqbalkeena sida nolol xisaabtami doono si kale haddii loo dhigo taariikhdaadii hore waxay saameyn ku leedahay taariikhda mustaqbalka dhaqanka aniga iyo Dr. Cali iyo dadka nalamida aan idinkaga tagno ayaa wuxuu idin sahli doonaa ama idinku dhibi doonaa sida mustaqbalka aad dunida ula falgashaan waxaa ka mid ah marka inaan aqbalno in haddii la rabo dalkan in la badbaadiyo laga baxo dhibkii aan ku jirnay shaqada ugu horeeyo nala ka raba inay tahay annagu marka hore dhaqankeenna inaan bedelno qof walbo naga mid ah inuu isla xisaabtamo naftiisa xisaabtamo uu naftiisa xisaabiyo uu yiraahdo musuqmaasuq ma ka shaqeeyaa qabyaalad ma ka shaqeeyaa been ma ku shaqeeyaa ummadda Soomaaliyeed ma ugu adeegaa sidii loogu talagalay inaan ugu adeego su'aashaasi hadday maya tahay bulsho weynta iyo dawladba inta aan la gaarin dawladda guriga asaaskeeda marka hore in la hagaajiyo waayo hadda waxaan idin lahaa sawirka naga baxay 30 sano la soo dhaafay waxaana la ka aaminsan yahay inaan nahay dawladda dunida ugu musuqmaasuqa badan marka laga soo qaado qoraalada ay qoraan Transparency International dhinaca kale markaa ka fiiriso labadii sano oo dalkan madaxweyne Farmaajo madaxweynaha ka ahaa aniguna aan ra'iisul wasaaraha ka ahaa waxaa lagu guulaystay in 90% kharashka iyo dakhliga dawladda ka baxa ay u baxaan sida soo socota inay ka baxaan akoon dawladda oo ay ku dhacaan akoon qof mushaar la siiyey ama adeeg bixisay haddii marka la yiraahdo waxaa la xisaabin karaa wixii baxay iyo meesha ay ku baxeen 90% maadaama dakhligeenu uu yar yahay intiisa badanna lagu bixiyo mushaar waxay ahayd Transparency International inay soo qorto Soomaaliya waa dalka ugu musuqmaasuq yar Afrika ma soo qorayso sabab ay haystaan taariikhdii aan idinkaga sheekeeyay oo ah 30 sano la soo dhaafay waa cidda bedelaysa marka taariikhdaas waa wiilasha iyo gabdhaha halkan fadhiya waa milkiilayaasha dalka cidda la rabo dalkeeda inay badbaadiso waa idinka waxaa kaloo la rabaa dawlad waliba inay ku tashato xooggeeda annaga xoogga badan ugu badan oo aan leenahay
وأنا من سنة هاي إنه يهاي في مستقبل كأنه كتر لها وحوي هاي إن ويران بقول كي بتضباط إيشان شعب الصوماليات أيهين دليرو لما أتكرني كوي لباتنات يبلاو كرني لبيلاتنات وحابط تجد أن قندونا مستقبل كأي تاريخ ذا أمة الصوماليات ويلشة يقبلها الجوجة هل كان مانتا سيدا يقول رقمان معها أنيجا يدتور علي يدت كنا لميت كاسيدا أنو رقم والكم فردي إذن كو سيدا هذا رقمتان الديات ليدين هم كوبا الديات كيف كرتاني أنا سكو قبيلنا هاي الديات أركتان مسوق ماسوق جراء واتكا مستان الدي أن سحظة يخلط كلا كلا كرا الدي أوسيس عضو رقم كأها إن دولة لماذا تحت لقى هذا سببته أو إحنا لصوب بري صدق كنا لصوب دافي الدي أن طريقة إستجاه حكوس عنه حلقة يابا إن قيب كنا نقولنا تاريخ يسوي دليل أبابلون مال والبو يجوبتو كم بدح بنان مسوق ماسوق يقبيال حجزته وحا أقوين أو قف بلا آذنا إلهي سيئي أو إستقى حرية ديسة طبطا هداد جيبتو قيب حرية هذا كم ذا نفط هذا وحكو ترميسيد دلك هذا وحكو ترميسيد هدي مركا دليل حرة مسكح عاصمات قبطة أن لقوا أذيجا لكن يجوا دلكو ذو أذيجا حنلنا يرجوي سؤالها أتسويدين إنسان معهن هو سياسيين تيكو قران برها بالشدة وكوكو سليسان مسكح دين واتفكرتان وما حيصحي غلط وما حي تاريخ ظهوري تاريخ المستقبل يا دل كان وناكسن يا وناكسنين سيدابان دولة أولى ترتنا محان أنا قلت دل كي كتركرا ربنا إن سيداس يلا دولة هذا جرتنا هي المستقبل وحال جربا إن السوق أديجيدي اللي يردوا يبقى هنايا لا بيسوق رمضة سبورتيا لا سوق عليه تياتر لا بيسوق مكتبات لا بيسوق متحف في قرنك لا بيسوق تالوينكي التاريخ ذا يدا أيدين كجا عاوزو إن الدلكي ندبي وبيسان على ذكو بشارين يا مركا إن قبل والبو أن تجنو أهمية ده أنسين دونا دلني رضا عقلنا ذكو بشارين يا إن مكتبة ديني متحف كيني يتياتر كيني يتالوين كيني يدو لقص علينا يسدي أي هاي واحد دول سارنان كنا يدول سارنان دونان إنه كذا دمان تاي أسبوعيو إنه صار دمادا كل جين وانا لحسابين دونا حنا لكو حسابين دونا دل كذا محاد قدر صدق محادك حلقة يا با إن أول سنتين وسليدين دلك مستقبل كيس سيدون نقنايا قف دلك مستقبل كيس السمين لها كما والولي كرم مستقبل كدلك عدي دلك مستقبل كيس السمين لهيد وإدينك وعاد كوكو بشارين يا مودن كينو كنا غالب بدن على بس أنا كهر إن غفل بو إن غفل بو دولة دول شقيستي مشاركة ذا قادته إن أقول يران الدنيا ذا أقبل شيء إن دي بهبين تدخلها ودن كينا شقيستي بش فبرايو هدي إلهي رهدنا أنا كوضا شقينو ودلكو قرك وساريها إن دين تلقى فيه وحضرتين عيد بدي إن دي بهبين لقوا سمعي ويلشيني يقبليني أي فرديان أو ديجله يستبيد يبرر يعلسليني وأي كأت كادين شباب كا شغدوا دنا يتحط وحضرتين الدنيا دينا أقبل شيء لكن بدل الصب أو
inaan madaxda Soomaaliyeed la iibsan karin haddii ay sidaas u malay jireen waxaad aragteen dhaqan bedel cusub oo ah in madaxdu aanay ka qaraaban ama ka qowlaysan dalkeeda laakiin ay dadkeeda u shaqayso aanna ogolnahay in lala xisaabtamo laaluush iyo qabyaaladna aanan ka shaqayn أنا أدوك فرحسنا هاي إن الصومالي هاي دولكي الصومالي هاي دتكي الصوماليين أفكي الصومالي هاي أنا ربع إن لسيح وجيو وحنا لغفر أنا من سنة هاي دلكي إنه كفر صد بدني هاي دلالك إنه حارة وأنا من سنة هاي إن نقون كرنا ودن قوة قنصة أفريقيا waxaan aaminsanahay in dalkeena loo soo shaqo tagi karo waxaan aaminsanahay in caruurteena mustaqbal weyn u sameyn karo waxa kale oo aaminsanahay inay taas u dhacayso sababtoo ah 75% dadka dhulkeena ku nool waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo raba dalkooda inuu hagaago mustaqbalna ay sameeyaan dal walba dalkiisa u kaca waxaan rabnaa in awoodda loo soo celiyo shacabka Soomaaliyeed oo qof walba isagu wax doorto iyaguna ay go'aan gaaraan dhalinyaro taariikhdan isqoraysa bandhigan aad isugu timaadeen oo isagu isfasiraya waxaan rabaa inaad ku xisaabtantaan waa maxay Soomaaliyada idin sawiran mustaqbalka soo socda sawirka marka aragtaan waa maxay shaqada aad rabtay inaad ku darsato waa la soo dhaafay waqtigii la dhihi jiray Soomaali iskuma tashan karto waa isku tashanaynaa waxaana ku tashanaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa idin xiran yahay shirku waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.